assalaamu calaykum. Maanta barnaamijkeennu waxa uu ku wareegi doonaa buugga la idhaahdo xataa takuuna ascada annaas ee uu qoray caa'id binu cabdillaahi alqarniy. run ahaantii waa buug ay tahay inuu ruux walba akhriyo si uu afkaarta ku jirto uu noloshiisa ugu dabaqo. waxa aanu kaga warramayaa oo uu si qodobaysan u sheegayaa waxyaabaha farxadda laga helo, sidoo kalena uu qofku ku dareemayo degenaansho nololeed iyo nabadgelyo. qodobo badan ayaa uu ku xusayaa buugga dhexdiisa, laakiin waxaaynu ka soo qaadan doonaa qaar ka mida qodobadaas. inta kalena waxaad ugu laaban doontaa buugga. waxa uu ina leeyahay yaanu ku raadin hadalka xun ee lagugu leeyahay, keliyaata waxa uu dhibayaa kii yidhiye ee adiga kuma dhibaya waa inaad noqotaa qof deeqsi ah, maxaa yeelay qalbiga deeqsiga ahi waa mid faraxsan oo waasica. qofka bakhiilka ama dhabcaalka ahina waa mid laabtiisu ay cidhiidhiyoon tahay oo madowdahay, sidoo kalena aan faraxsanayn. u furfur wejigaaga dadka, waxaad kasban doontaa kalgacalkooga hadalkana u debci, waa ay ku jeclaan doonaane. isna duldhig, waad soo jiidan doontaaye. eeg waxa agtaada yaallo oo dhammaystiranka jidhka iyo qaabdhismeedkaaga, xoolahaaga, gurigaaga, shaqadaada iyo sidoo kale awlaaddaada. waxaad ogaan doontaa inaad tahay mid ka nasiib badan kumannaan qof oo ka sarreeya waxa aan kaaga digayaa inaad dadka dhaawacdo. noqo mid carrabkiisa laga nabad galo oo hadal wanaagsan leh oo hadal macaan, dhinac kastabana ka aamin ah. waxa uuna leeyahay la keli noqo naftaada saacad oo aad ku rogrogayso arrimahaaga, naftaadana aad dib ugu noqonayso, kana fikiraysa aakhiradaada iyo adduunkaagaba. ogow samirku waxa uu aasaa ceebaha, dulqaadkuna waxa uu asturaa gafafka, deeqsinimaduna waa maro weyn taasoo daboosha nusqaanta iyo balaayooyinka. maktabaddaadu waa saaxiibka ugu fiican, la saaxiib kutubta, la saaxiib cilmiga iyo aqoonta. la noolow qur-aanka adiga oo akhrinaya, dhegaysanaya, xifdinaya oo ku tadabburaya ama u fiirfiirsanaya, maxaa yeelay waa daawada u weyn si ay kaaga tagto murugada iyo walbahaarku. adduunkani waxa uu ku dhisan yahay nidaam, sidaa awgeed tartiibi howlahaaga, gurigaaga, dharkaaga iyo maktabaddaadaba. waa inaad socotaa oo aad samayso jimicsi ama exercise, kana fogow caajiska iyo iska fadhiga, naftaadana ka ilaali firaaqada. waa inaad booqataa dhakhtarrada si aad u garato nimcada caafimaadka, waa inaad booqataa jeelasha si aad u garato nimcada xorriyadda, sidoo kale dhakhtarrada dhimirka waa inaad booqato si aad u garato nimcada caqliga, maxaa yeelay adigu ma garan kartid haddii aad iska dhex jirto nimcadan. qodobkan waxaa la mida oo kale xadiiskii uu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam ee ahaa qubuuraha booqda, waxaa idin xasuusinaysaa geerida ha noqon sida duqsiga kaasoo ku urura meesha dhaawacan. waxa aan kaaga digayaa inaad dadka sharaf riddo adiga oo baadhaya ceebahooda, sidoo kalena sheegaya meelaha ay ku liitaan. iska cafi ciddii ku dulmisay, xidhiidhi ciddii ku goysay, sii ciddii kuu diidday, una dulqaado ciddii ku xumaysa. waxaad heli doontaa farxad, raynrayn iyo amni mararka qaar safar si aad u cusboonaysiiso noloshaada, una soo aragto caalamyo kale oo cusub iyo magaalooyin kale, maxaa yeelay safarku waa farxade. qodobkan haddaad u fiirsato waxaad arki doontaa inuu allana meelo badan inugu amray inaynu dhulka soconno oo aynu u fiirsanno si aynu uga kororsanno aqoon, una aragna dadkii hore raadadkoodii. allana waxa uu ku leeyahay qur-aanka kariimkaa qad khalat min qablikum sunanun fasiiruu fi lard fanduruu kayfa kaana caaqibatu almukadibiin. idinka hortiin waxaa tegay ummado, dhulka socda oo fiiriya halkay ku dambaysay cidhibta kuwii beeniyey. mar kale waxa uu alla ku sheegay suuratul ancaam aayaddaa mid la macno ah bacda acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim qul siiruu fi lardi humma anduruu kayfa kaana caaqibatu almukadibiin. ku qanac suuradda uu alla kuu abuuray, mawhibada uu ku siiyey, dhaqaalaha uu ku siiyey, qoyska uu kaa jirsiiyey. waxaad heli doontaa deganaansho iyo farxade. ka digtoonow kelmadda jeer dambe ama sawfa iyo dib u dhigidda howlaha, maxaa yeelay taasi waa bilowga fashalka iyo guuldarrada sii deynta isha lagu sii daayo eegidda xaaraantu waxay dhaxalsiisaa qofka hamiyo murugo, sidoo kale qalbigiisa ayaa dhaawacmaa. qofka faraxsan waa ka ishiisa laabay, rabbigiina ka cabsooday. cuntadu waa farxadda maalin, safarku waa farxadda usbuuc, guurku waa farxadda bil, hantidu waa farxadda sannad,
iimaankuse waa farxadda noloshaada oo dhan. u beddel khasaarahaaga faa'iido, liintaadana ka samaysa sharaab macaan, biyaha musiibadana ku dar muggeedoo sonkor ah. intaas macnaheedu waa ku habboonoo kolba xaaladda taagan. marka uu bani aadamku garto naftiisa iyo cilmiga ku habboon, una kaco sidii uu dhammaystiri lahaa, waxa uu helaa farxadda iyo macaanka guusha. qofka uu u fududaado wax akhrisku waa mid faraxsan, maxaa yeelay waxa uu guranayaa beeraha caalamka, waxa aanu dawaafayaa cajaa'ibta dunida dhexdeeda, wakhtigay doonto iyo meeshay doontaba ha ka dhacda. la sheekaysiga walaaluhu waxa uu tegsiiyaa murugada, kaftanka wanaagsanina waa deganaansho, dhegaysiga gabayguna waxa uu raaxeeyaa qalbiga. faa'iidooyinka iyo xikmadaha buuggan ka goyoon mayno, intaa haynoogu jooga maanta. wassalaamu calaykum.